waxa garabkayga taagan suxufiga ruuga cadaaga ah ee Cabdalle Xaaji ahna quraacaan ah oo buugaag qoray waxana uu ka qayb galaya carwada buugaagta Hargeysa ee maanta furantay Cabdalle adigu maxaad soo bandhigtay qoraano waa tahay suxufi ruuga cadaayana waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Boosh dhammaan waa nin mahadnaqaya Sab TV bandhigii 14aad ee Hargeysa International Book Fair ee aan ka soo qayb galay weeyaan anigu mid u baa dhaafay 13 kalaba waan ka soo qayb galay intaasna buugaag baan soo bandhigay wixii aan qoray markii horeysay buugii xeer ciiso aan qoray baan soo bandhigay waxa ku xigay buugii kale la yiraahdo maxaa waaye arag oo dhaqankeeni ka hadlayay waxa ku xigay Allahumma salli ala Muhammad qalin makooban oo suugaantii Allahumma naxariista cali mooga ahayd waxa kale oo ku xigay sooyaalkii fanka iyo hobalada Jabuuti oo aan sanadkii hore isagana soo bandhigay sanadkan buug cusub ma aan soo saarin laakiin buugii xeer ciiso oo dhamaaday ayaan dib u daabacay isagoo nooc cusub ah isla markaana waxyaabaan ku jirin oo yaani dadka soo jiidanay oo faa'iido lana way ku jiraan kolka buugaas aan soo saaray oo bandhiga yaala oo lagu iibinaya nasiib wanaag maanta wafdi ballaaran oo reer Jabuuti oo ay hogaaminayso wasiirkii dhaqanka iyo dhalinyaradu yaa wafdi hogaaminay oo yimiday marka awal hadaan Kaligay ahaan jiray labadan sano dambe oo dawladdii Jabuuti waa meesha maray wasiiradii iyo dadkii dhaqanka ka shaqeynay oo dhan ayaa maanta ka soo qayb galay waa kaas oo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdalle Xaaji suxufiga caanka iyo qoraaga reer Jabuuti oo aan halkan ku wareysanayay carwada buugta Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber